السلام عليكم صاحبي الكلنتو عن وناكسن اسكو سو نقد وناكسن هريالدي عالمك اي بريمير ليج او مانتا سي لايف او سocdo kuwa caalamkana isbuucadan ugu soo aadan ay si toos ah hawada u soo gali doonaan dib u bilaabi doonaa falanqayntii ku saabsaneen qaabkan ugu faa'iideysan lahayn ciyaarahan dib u soo laabtay iyo waxyaabo kale oo cusub waxaan rabaa maanta inaan ku baro yar oo secret ah oo dadka badankood ay ka qariyaan taasoo ah qaabka ciyaaraha loo taxliiliyo waxaan ku tusi doonaa 3 step oo aad u fudud oo aad ku taxliili kartid ciyaaraha dhamaantooda waa maasantahay daabasho wacan aan isla socono muuqaalka haddii aad ka heshay fadlan ama markii ugu horeysay channelka soo booqatay fadlan subscribe saaro sidoo kale tana muuqaalka haddii uu ku qanciyay like saaro ugu horeen waxaad imaanaysaa live scoreka application ku waxaan ku dhigi doonaa haddii uusan kugu jirin mobilka description-ka ee muuqaalkan markii aad timaado qaybta dhinaca H2H ee ku qoran tahay ayaad tagaysaa waxaad ka fiirinaysaa kulmada ay dheeleen labada kooxood aad rabtid inaad taxliilisid sidoo hadda waxa inoo muuqato labadan kooxood Chelsea inay awood badan tahay oo kulmada ugu dambeysay dheeleen inay Chelsea badisay halkan kala imaanaysa tigta waxa saaraysa kooxda u maleysay inay awood badan tahay boqolkiiba 69 hadda waxa awood badan Chelsea halka boqolkiiba 6 isleeyahay way badi kartaa Crystal Palace step labaad waxaad imaanaysaa Google-ha waxaad ku qoraysaa Chelsea halkan ay ku keeni doonaa qaybtan ayaad galaysaa oo horyaalka kala horeyntiisa ama kala sareyntiisa kadib uma baahnid hadeertadan horyaalka inaad eegtid waxa loo baahan yahay sanadka ayaad bedelaysaa 2020ka ayaad ka dhigaysaa labadan kooxood kaalmee ku kala jireen sidaad u jeedid Crystal Palace 14 ku jirtay Chelsea 4 ku jirtay sanadka ka sii hore 2019ka Chelsea wuxuu ku jirtay 4 Crystal Palace wuxuu ku jirtay kaalinta 14aad marka tan waxa ku kala ogaanaysaa koox walba ama labada kooxood tii awood badan ama sanadihii la soo dhaafay kooxaha labadood tii awood badneed hadda waxaan haysanaa stepka labaad oo ah kooxaha teebaa kala sareynta horyaalka ugu sareysay ama ugu awood rooneed hadda waxaa haysanaa waa tusaale kaliya waxaan taxliilinay Chelsea Crystal Palace kulanka labada kooxood kala sareyntooda iyo awoodooda hadba kooxda asleenahay way guuleysan kartaa stepka saddexaad waxaad tagaysaa website-kani linkigiisa waxaan ku dhigi doonaa description-ka markaadkan aad timaado waxaad ka sii dooran doontaa qaybta correct score waa inaad fahantaa halka aan ka hadlayo hadda Chelsea waxay ku saadaaliyeen inay Chelsea ku badi doonto ama ku awood roonaa doonto 3-0 marka muhiimadda ka leenahay ma aha correct score-ka 3-0 ku badinay ayaan ka qaadanaynaa waa inaan ogaanaa kooxda heerkeeda iyo goolasha loo saadaaliyay tusaale kale hadda United waxay leedahay 5 gool website-ku wuxuu u saadaaliyay 2-1 taas oo ku kala cadeynayso labada kooxood tii awood roon linkiyada application-ka live score-ka sidoo kale groupka aan shaxda VAB-da soo dhigay ee Telegram-kana waxaan ku soo dhigayaa qaybta description-ka muuqaalka iyo comment ugu horeey waad ku soo biiri kartaa shax maalin walba oo free ah oo aan lacag laga rabin guul iyo guul daraba adiga aad helayso ayaad heli doontaa soo dhawow